Assalaamu calaykum soo dhawaada kusoo dhawaada muuqaal cusub iyo maalin wanaagsan waxaan rajeynaa maalintaada inay ku tahay maalin qurux badan muuqaalka waxaan kaga hadli doonaa 5 dhunkasho ee tahay maalin walba may 4 dhunkasho waaye ee tahay maalin walba in aan cunuga maxaa laha ilmahaada yar aad dhunkatid ilaa uu ka weynaahay xataa haduu uu 30 sano 40 sano 50 sano u jiro wuu kaaga baahan yahay cunuga inaad subax walba u sameysid 4 dhunkasho iyo 5 taabasho waana wax maxaa lahaa qaar nabiga ka soo arooreen maxaa la wax diinta ku imaadeen iyo wax cilmu nafsigu u sheegay intaba isku darsanta insha Allah marka waa fahmi doontiin waa 4 dhunkasho oo ay tahay cunugeeda intii uu nool yahay adigana aan nooshahay inaad subax walba iyo maalin walba aad dhunkatid iyo 5 taabasho ay tahay in maalin walba aad taabatid mid lixaad jirto oo markii loo baahday oo mar walba aan ahayn laakiin 5 taabasho oo mar walba ah marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin tan waa qaybta cilmu nafsiga iyo tarbiyada carruurta ma ahana qaybta caafimaadka caadiga ah waa qaybta cilmu nafsiga iyo la xiriirtay tarbiyada ilmaha soo dhawaada markii kuugu horeysana soo booqata hadii aad subscribe noo saar gambalelkana furo hadii hore aan la joogtane like saar maxaa la si dad badan u sii gaaraan waxaan dareemaa xoogoo like-tiina inay yar tahay ayaantan marka bal like-ta xoogoo la isku caawiyo si dad badan u sii gaaraan hooyooyin badan iyo maxaa la aabayaal badan ee u fiirsadaan uga faa'iideystaan tan koowaad waxa waaye waa maxaa la qaybta dhunkashadan ku bilaabaynaa waa 4 dhunkasho ee tahay cunugaada inaad subax walba aad dhunkatid tan koowaad waxa waaye waa madaxa in madaxa qaybtaas kore oo madaxa maxaa la oo aad ka dhunkatid waayo cunugaada maxaa la waxay dareensayeen inaad tahay ra'uuf qof u naxariisahay oo u dhimrinay inaad tahay ay dareensayeen cunuga marka waxay kale ka saacidaa cunuga in uu ku sugnaado in uu sameeyo camal saalix ah marka qof walba oo awlaad dhalo wuxuu jecel yahay in awlaadiisa Ilaahay uu ku hanuuniyo inay noqdaan kuwa camal saalix ah la imaado marka dhunkashadan cunuga madaxa laga dhunkanayo madaxa waxa waaye meeshan yar ma aragtay ilmaha marka dhashaan oo nusnusleeda la maskaxda dhag ka tiraada aysan intaysan xirmin cunug 2 sano ka gartay xirantaa marka meeshaas yar dhag dhahays intaysan xirmin meeshaas waa meesha ku aadan marka ilaa iyo cunugaada uu 100 sano haduu jiro xataa aan nooshahay waa inaad ka dhunkataa maalin walba meesha ku aadan waa in subax walba maxaa lahaa maalin walba aad ka dhunkataa cunuga waxay dareensiinaysaa ay leedahay wuxuu dareemaa fariin ah waa kugu faanaa faquuran kugu ah waa kugu faanaa camalka sameynaysid waa ku faanaa ina wiilkayga tahay ina gabartayda tahay waa ku faanaa ay dareensiinay cunuga waxayna ku sugtaa in uu wana sameeyo camal saalix ah maxaa lahaa ilaahina maxaa la raali geliya maxaa la adigana ku raali geliya baariku naqda camal saalix ay ku sugtaa cunuga inuu sameeyo dhunkashada labaad waxa waaye cunuga waxay laga dhunkada ilmaha jabiinka meeshan foolka hore ah ka dhunkani waa tan labaad foolka hore cunuga laga dhunkana maalintii waxay dareensiinay cunuga ina raali ka tahay waxay tahay raaliyan ka ahay ina cunugayga tahay raali aan ka ahay in maxaa la camalkan aad sameysid raali ayaan ka ahay shaqada aad ku jirtid raali ayaan ka ahay wax walba wanaag ah noloshaada aad sameynaysid cunuga waxay ku hanuuniyay ayadana si cilmu nafsiga uu sheegay iyo tarbiyada ilmaha ay sheegan cunuga waxay ku hanuuninay asagana wadada toosan inuu qaado oo wax walba raali Ilaahay ka yahay maxaa la noloshiisa anfacayo inuu cunuga ku dhaqaaqo ay ka saacidaa ilmaha marka waa wax cunuga maalinta uu dhasho ma ahan inaad tiraahdo waxba ma ogo marka cunuga wuu dareemaa cunuga soo caloosh ku jira dhaqaaqada dareemayo dareenkaada dareemayo markuu dhasho inuu ku dareemi waayahay ma ahan markuu ku dareemaa cunuga waxay tahay raaliyan ka ahay wax walba camal ha sameynaysid waxay ku hanuuninay inuu camal maxaa laha Ilaahay raali ka yahay oo la imaado marka waxaa jirta maxaa laha kaan nabi sallallahu alayhi wasallam la yad'a Faadima illa qabalaha fi jabinaha marka nabiga gabadhiisa Faadima mar walba uu maxaa laha u arko wuxuu ka dhunka jiraa lagu leeyahay jabiinka waa meeshan foolka hore ah foolkaas hore oo qofka markuu sujuudayo dhulka u dhigayo meeshaas waa foolka marka nabiga waxa lagu dhahaa mar walba uu Faadima arka kama tagi jirin ilaa inuu ka dhunkado maxaa lahaa foolka ma ahayn taas waa dhunkashada labaad dhunkashada saddexaad waxay tahay shawq waaye oo maxaa lahaa shawq calashan hilow qof ka soo qad kala maqnaadeen oo kale u hilowday cunuga xal haduu seexday intuu hurdiisana waa kala maqnaadeen waa ku hiloobo waa xiriir adag aan dhexmara adiga cunuga hadii aaba tahay hadii hooyo tahay hadii aad dhunkashadan maalin walba u sameysid iyo taawashooyinka ay imaan doonaan cunuga wuxuu dareemaa maxaa la waxa idin dhexmara boon adag xiriir adag ay adiga cunuga idin dhexmaraan marka tan saddexaad waxa waaye shawq waaye cunuga wuxuu dareemaa maxaa la ina u xiistay asagana uu ku xiisa oo xiriirka adiga cunuga idin ka dhaxeeyo wuu ziyaada
mid afraad oo dhunkashada afraad waxaa waaye marka tan oo shawqa ah oo hididiilada ah alshan hididiilayaan dhihin oo ah maxaa la dhahaa waa kuwa hiloobo shawqa ah waxaa laga dhunkadaa labada daan labada dhabana cunuga laga dhunkanaa tan afraad waxaa waaye jacayl waaye xubbi iyo mawadda waa jacayl ama kalgacayl marka Soomaali ahaan xogo iska agdhowda laakiin Carabi ahaan marka loo fiirsho aad ay u kala duwan yihiin xubbiga iyo mawaddada aad ay u kala duwan yihiin marka Soomaali ahaan oo iska macna dhow yihiin oo maleeyaha xubbi iyo mawadda calashaan jacayl iyo kalgacayl oo dareema cunugi waa dhunkasho cunug labada gacmood inta ka qabatid ka dhunkanaysid waa labadiisa gacmood marka xataa nabiga tan Faadimo uu sameyn jiray oo waxa lagu leeyahay mar walba uu Faadimo nabiga uu arko labada gacmood oo qaban jiray wuuna dhunka jiray marka sifa maxaa la dhahaa uu nabiga uu sameeyay ee maanta ku cilmu nafsiga tarbiyada ilmaha ka hadla ee hadda ay ogaadeen ayagana ku sheegeen waay marka wax 1400 sano ka hor nabigeena uu sameeyay oo gabadhiisa Faadimo uu sameeyay ay tahay waa haboon tahay in adigana ilmaha uu sameeysid inta badan waalidka Soomaaliga anigu inta arko way yartahay waalid cunugiisa dhunka haya ma aqaan ma xiriirka waalidka Soomaaliga oo ilmaha ka xiriirka inuu kala dhaxay uu aaminsan yahay wax kale ahmiya ma ogi wallahi somehow idinka hada aragteen bal commentiga noogu reeba ani waalid Soomaaliga mar walba ilmihiisa dhunkana waa yartahay inta aan arko marka afartaas waxay ahayd dhunkashada ay tahay in cunugaada subax walba ama maalin walba aad dhunkatid waajibna ay tahay in dhunkatid oo waajib cashan diinu hada ka tagtid dambiga gali ah ma ahan laakiin waa wax maxaa la aad loogu baahan yahay in cunugaada u samaysid maalin walba shan taabasho oo waxa jirta cunuga maalin walba aad taabanaysid kan tan koowaad waxa waaye qaybta dambe oo madaxa cunuga qaybtan dambe oo maxaa la dhahaa qofka markuu gadaxda u seexdo kale meesha uu madaxa dhiganayo uu seexana ina maalintii ka taabatid asaas uga salaaxdid waaye cunuga wuxuu dareemaa marka raan laqdaa waxay qofan jawaabay marka taawashadan qaybta dambe oo ah madaxa oo qofka markuu saas u seexdo uu maxaa la uu ku seexanayo kale markii cunuga saas gacanta uga marsido ka salaaxdid cunuga wuxuu dareemaa sidii uu dareemay marka madaxa ka dhunkanaysa wuxuu dareemaa in rauf tahay in uu naxariisanaysid oo maxaa la qof u naxariisanayo cunugan aad ku dareemaa tan labaad taabashada labaad waxa waaye lamsatul faqri yaa lahaa oo madaxa qaybtan oo nusnusleeda ah ayaa cunuga ayadana ka taabanaysa gacanta uga salaaxay cunuga wuxuu dareemaa inaa ku faanaysid wuxuu farin cunuga waxa loo gudbinaa waa kugu faanaa maxaa la wax adiga maanta aad dhehaysid ma ahan xataa just hadaa samaysid fariintan waa wax ilaahay uu wato fariintan aasan ah cunuga gaaraysa adigana way ka tagtaa asagana way gaartay waa boon adiga cunugiidan dhex maraayo laakiin just taabasho aa sameysay waxa maxaa la micno waxa gudbaayo aad u weyn maanta hadii aad tira cunuga waa u sheegaa ama maxaa la hadal ahana uu sheega aadan gudbi karin oo hadal hadii afka aad ka hadashido maanta oo dhan hadlaysid wax qalbigiisa saameynsaas aan ku yeelan karin ma aragtay oo hadalkaada naqana just ficilkan aad sameynaysid waxay kala qiimo badan tahay kun kalmadood aad ku hadashay kun kalood ku hadashay xiriir adiga cunugiisa inay dhex marsiin karin ay just taabashada in dhunkashada adiga cunugiisa dhex marsiinay xiriir adagoo wanaagsan ay dhex maraan marka tan labaad waxa waaye in meeshaas nusnooyida ah madaxa koro cunuga saas gacanta uga salaaxdaa maalin walba cunuga wixii dareensiinay waa kugu faanaa inaa leedahay marka dhiirigelin uu noqonay noloshiisa maalintaas wax walba uu qaban lahaa cunug firfircoon dhiirigelin lahu noqonaa wax walba inuu ilaahay u hagaajiyo badan tahay lian adigoo kalsooni ka haysta inuu qaldamayo cunuga way ku yartaa ma aaminahay wuxuu aaminaa maadaama adiga waa kugu kalsoonahay waa kugu faanaa farinaha asaaka u dhiibtay just maalintaas dhan cunuga maxaa la noloshiisa iyo waxyaalaha uu wajahay inay wanaagsanaadaan ay 99% u badan tahay hadii ilaahay yiraahdo taabashada saddexaad waxa waaye jabiinka iyo foolka hore ina cunuga saas gacanta aad kaga saartid wuxuu dareemaa inaa raalli ka tahay wax walba uu sameynaa inaa raalli ka taho dareemaa just fariin waxa gaaraysa asagana ah inuu wax walba wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay adigana aad raalli ka tahay inuu ku dhaqaaqo cunuga taabashada afraad waxa waaye cunuga labada gacmood inaa labada dhaban ka saartid waaye oo labada cunuga labadiisa daan aad saartid labada gacmood cunuga wuxuu dareemaa hilow ina u qabtid oo u xiisto dareema cunuga tan shanaad waxa waaye cunuga labadiisa gacmood inay qabatid maxaa la dhahaa oo aad dhunkatid labadiisa gacmood inay qabatid tii hore waxay ahayd labadiisa gacmood qabanay waa dhunkane tanna waxa waaye marka wuxuu dareemayay kalgacayl mawadu dareemayay kalkan markii labada gacmood cunuga aad ka qabatid aad taabatid labadiisa gacmood cunuga waxa ka yarahay tawatur علشان توتر Soomaali waxa lagu dhahaa qofka markuu walwalsan yahay kale ama uu rabo inuu wax sameeyo kale inuu go'aan qaato oo rabo kale laba labeen oo ku jiro ama maxaa la xaalad oo tawatur ah adi
uu ku jiro kale qofka uusan fadhinin oo xaalad oo maxaa la dhahaa uu labac oo ku jira calashaan qofka haddii labada gacmood cunug aa ka qabatid oo kale oo maxaa la dhahaa labadiis gacmood asaas ugu salaaxdid cunuga wadaga tawaturka iyo maxaa la dhahaa labacda ku jirta iyo maxaa la dhahaa nolosha iyo jawiga markaas fadhinin oo go'aan qaadashada ay ku adkeedo kale kasoo qaad cunugaada maanta imtixaan uu leeyahay cunuga markuu maanta imtixaan leeyahay kale ama dugsiga cashirka si fiican uusan ugu aqoonin maxaan ka muuqato ma uu isleeyahay imtixaanka uusan aqoonin si fiican uusan u diyaarinin uu isleeyahay cashirka maanta ama imtixaanka kasoo shaqeyn weysaa cunuga xaalad tawatur ah ku jira xaalad cabsi ah ku jira iyo qalqal ah markaasoo kale subaxaas oo kale waxaa wanaagsan in labadiis gacmood aa qabatid labada gacmood aa cunug labadiis gacmood ku qabatid maxaa la dhahaa foolkiisa aa dhunkatid labadiis gacmood aa dhunkatid tawaturka iyo waxaan maxaa la dhahaa qalqalkan cunuga ku jira dhan wuu ka ba'aa wuxuu noqonaa cunug xasiloon degan oo noqona oo wax walba meesha sawaabka ah insha Allah ka aado ayuu noqonaa marka tan lixaada u dambeyso waxa waaye mar walba inaad samaysid ma ahan xaalad qaas ah marka cunuga ku aragtid waa sida ka soo qaad cunuga xaalad macsi ah ku socdaa xaalad mardiida iyo caasi waalidiinimo ku aragtay xaalad oo maxaa la ka soo qaado kale salaada inuu maanta uu ka tagtagayo kala ku aragtay soonkii oo kale inuu si fiican ku ahayn ku aragtay xaalad xun oo saas camal ah marka ku aragtid cunuga waa inaad xabadkiisa gacanta marisaa saas xabadkiisa gacanta uga salaxdaa qofka wuu dagaa maxaa la cunuga wuu dagaa jidka toosan insha Allah qaada oo maxaa la jidka toosan inuu qaado ilaahay u fududeeyo ayaa la rajeynaa cunuga waxa sila hadii xabadkiisa asaas gacanta inta u saartid asaas u salaaxdid aad tiraahdid ilaah wax walba wanaag ah oo maxaa la ilaahay raali ka yahay ilaahay ha kugu hanuuniyo maxaa la ducaan aa ugu dirtid dasta gacanta marka saartid liana cunuga waxa dareemay xaalad aan fiicnin in cunuga uu ku socdo marka gacanta saas xabadka u saartid oo salaaxdid oo u duceeyay marka xaaladda markaas uu ku jiro kale hadii cunuga marka salaad iyo xoogo galab ay ka aheed oo kale waxa leedahay maxaa laha ilaahay ha kugu sugo salaada amal saalax ilaahay ha kugu sugo haduu zin ku socdo kale gacantaas ugu salaad xawdka ugu salaaxdid aad aadid ilaahay farjigaada ha xifdiyo xumaan iyo macaasi ilaahay ha ka xifdiyo insha Allah sida cilmu nafsiga ay dhahan ilaahayna laga rajeeyayo cunugaada inuu xasilo wax walba xumaan uu ku socdan uu ka soo laabto ayay u badan tahay insha Allah marka soo dhawaada muuqaalkeena ka faa'iideysateen rajeena hadii markaad kugu horeeyay tahay subscribe noo saar gambalelkana furo hadaa hore noola joogtane like iyo share si maxaa laha dad badan oo sii gaaray kaga faa'iideystaan soo dhawaada